waan idin salaamay oo soo dhawaada fikradaha xalliya podcast iyo xalqad kale. Xalqadan waxaan kugu bari doonaa 6 wado oo aad ku nadiifin kartid maskaxdaada. Waxa laga yaabaa markaad imaato maskaxda nadiifinteeda inaadan sidaa uga sii fakarin. Hadda adduunyada aynu joogno markaad fiirisidna, adduunyo waxa waaye qaska iyo distractionka aad ugu badan yahay ayna adag tahay in aad wax achieve garayso ama ay wax kuu suurta galaan ayadoo aysan jirin wax aad ku mashquulinaya sida taleefankaaga, sida dad social media ka follow garanayso, sida warwar ku haysta inaad ka fikraysid waxyaabo hore kugu dhacay, inaad ku nooshahay xilligii tagay waxyaabahaas oo dhan. Marka waxaa jirta 6 wado oo anigu aan sameeyo shakhsiyad ahaan, xalli ahaan oo noloshayda bedeshay. Waxaan rabaa inaan kula wadaago 6 wado iyo sidii aad ku nadiifin lahayd maskaxdaada, markastana maskaxdaadu ay noqon lahayd maskax wax soo saar badan. aad bay u muhiimta mashiinka kaliya inuu haysano markay imaato noloshan maskaxda waay ilaa intaad ka dhimanaysid ilaa waaga dhalatay waxa kaliya aad isticmaalayso waa maskaxdaada. Haddii maskaxdaada nabad qabkeeda iyo deganaanshaheeda aadan ka fakarinna way kugu adkaanaysaa inaad wax achieve garaysid ama waxyaabo kala duwan ay kuu suurta galaan nolosha. Qodobka koobaad ee aad maskaxdaada ku nadiifin karto xilligan casriga ah oo ay badan tahay qaska iyo distractionka waxa waaye bilow in aad dadka waxba aan kugu soo kordhinayn ee baraha bulshada aad ka raacdid ama aad follow garaysid aad unfollow dhahdid. Laakiin maxaad u leedahay dadka unfollow dheh? Hal wax baan kuu sheegayaa. Haddii aad hadda fiirisid YouTube-kaaga ama haddii aad hadda fiirisid TikTok-kaaga ama haddii aad hadda fiirisid Twitter-kaaga, waxaa laga yaabaa intaas oo kun oo qof oo kala duwan oo hal xabo ay kugu soo kordhiyaan aysan jirin. waa lagu madadaalinayaa qofkan waxbuu sheegaa, qofkan hadda ka hor baa daraamo isagoo wadaan arkay, subscribe baan saaray, qofkan mid kale isagoo caynayaan arkay. Gaar ahaan inaga Soomaalideenna haddii ay dadka aad ku xidhan tahay ama dadka aad social mediaha ka raacdid aysan waxba kugu soo kordhinayn, ha noqoto inay ku dhiirigeliyaan, ha noqoto inay information muhiima oo noloshaada bedelaya ku siiyaan sida broadcastigan oo kale, ha noqoto wax qiimo leh inay kugu kordhinayaan adiga shakhsiyad ahaan, way adkaanaysaa in aad maskaxdaadu nadiif ahaato. Daraamo kasta, cid kastoo isqabsatay, naag kastoo la furay, habro isdagaalay, naago xarash isu haya, cabdi khasaareyaal internetka isku qaylqaylinaya maanta oo dhan, waxaasoo dhan waad follow garaynaysaa, maskaxdaadana waxaa ka buuxa qashin iyo wax aan loo baahnayn. Marka waddada koobaad ee aad maskaxdaada ku nadiifin kartid xilligan casriga waxaa waaye bilow inaad unfollow dhahdid dhammaan dadka kala duwan ee waxba kugu soo kordhinaynin. weliba dhinacan kale markaan ka fiirino cabdi khasaareyaal badan waxaad raacdaan wax kale maaha naaga niikiya oo dabadooda idin tusiyaad raacdaan, naag sawirro qurux badan soo dhigta oo kaliya adiga kaaga waalaysa, attentionna kaaga helaysa meesha aad u gelisid maanta oo dhan. Sharafay waa ku jeclahay, sharafay waa kugu haystaa, waa diyaarsan tahay. waxaasoo dhan waa distraction iyo qas. bilow inaad unfollow dhahdid, kana taxadar oo ka fiirso dadka aad follow dhahaysid ama aad subscribe channeladooda saaraysid ama aad ku xidhan tahay, waayo markasta haddii aysan informationka ay kuu keenayaan uusan macno noloshaada u samaynaynin, waxba kuguma soo kordhinayo. Qodobka labaad si aad maskaxdaada u nadiifiso xilligan casriga wuxuu noqonayaa aniguna aan aad u isticmaalo, dooro dadka aad la macaamilaysid. Maxaan ka wadaa? Marka imaato la macaamilka dadka iyo dadka aynu sida maalinlaha ula kulanno, ha noqoto baraha bulshada, ha noqoto si caadiya oo toosa oo foolka foola, dadka aynu dhex galno aad bay u muhiim yihiin, saamayn weyn bayna kugu leeyihiin marka loo barbar dhigo dadka social mediaha aad ka raacdid ama aad ka follow garaysid. Waa kuu muhiim inaad dooratid dadka aad la macaamilaysid. Qof calacalaya, qof maanta dhan murugsan, nin maanta dhan kuu sheegaya sidaysan waxba u suurtagelaynin, nin maanta dhan kuu sheegaya sida noloshu adag tahay. Dadka aad dhex gelaysid ama aad wakhtigaaga ugu badan gelinaysid markay imaato la macaamilka iyo isdhexgalka bulshada, waa kuu muhiim inay yihiin dad aad dooratay oo noloshaada value ku soo kordhinaya, adiguna tooda aad value ku soo kordhinaysid. Rag waxaa jira markaad ku dhahdo waxaasaynu samaynaynaa, wallahi ma suurtagelayaan, kan baa niyow jira, qorshahan baan hayaa, wallahi ma dhici doonto, way adkaanaysaa. Qofkan maanta oo dhanba waa negative, wax kuu suurtagelaya ma jirto, waayo bini'aadanku way is saameeyaan, energy-gana waa la kala beddeshaa. Marka bilow inaad dooratid dadka aad dhex gelaysid, ha noqoto social mediaha oo ah dadka aad follow garaynaysid iyo dadka aad ku xidhan tahay, ama dadka aad waxyaabahooda akhrisid ama aad podcastiyadooda dhegaysid, waxyaabahaasoo dhan. Iyo sidoo kale dadka sida maalinlaha ama ragga aad sida maalinlaha ula macaamishid ama aad dhex geshid ee kugu hareeraysan, saamayn bay kugu leeyihin. Oraha baa jirta dhahaysa
itusi saaxiibada waxaan ku tusinayaa qofka aad tahay waana run haddii 5 nin oo calaacalaya oo nolosha negative ka arka aad la macaamilaysid waxaad noqonaysaa kan lixaad haddii aad la macaamilaysid 5 nin oo ka arkaya nolosha dhinaca wanaagsan fursadaha siday chance uga heli karaan uga qaadan karaan siday waxyaabo qaar iskugu dayi karaan sida markay wax soo barto wax ku fashilmo kan kale uu sii bari karo sida level up lagu sameeyay waxyaabaha ka wada hadlaya markay is arkaan waxaad noqonaysaa kan lixaad ee noloshiisu guulaysanayso haddii 5 ganacsade aad saaxiib la tahay kan lixaad baad noqonaysaa ee ganacsada noqda waayo mar kastoo la isu yimaado waxa laga wada hadlayaa ganacsi waxa laga wada hadlayaa sida lacag loo sameyn lahaa waxa laga wada hadlayaa sidii ganacsigan looga wada shaqayn lahaa waxa laga wada hadlayaa sida customerka lagu qancin lahaa waxyaabahaas oo dhan taas maxay ka caawinaysaa maskaxdaada meesha ay u badan tahay mar kasta saameyn weyn bay ku yeelanaysaa dhinacan kale haddaynu fiirino 5 nin oo maanta dhan ka sheekaynaya naaga daalan ka sheekaynaya ciyaaro ka sheekaynaya waxyaabo aan macno samaynaynin waxaa noqonaysaa kan lixaad ee aan macnaha samaynaynin ee cabdi khasaaraha marka ka taxadar cidda aad la macaamilaysid ama cidda aad dhexgelaysid si maskaxdaadu ay nadiif u noqoto qodobka saddexaad waxa uu noqonayaa si maskaxdaada aad u nadiifiso ugana taxadarto deganaanshaha maskaxdaada ku noolow hadda maxaan ka wadaa badanaa way fududahay in maanta oo dhan aad qol ugu dhex jirtid wax kugu dhacay 2018 depression baa haya 2018 wixii igu dhacay naagtiiga tagtay shaqadii aan waayay 2019 sidan baa igu dhacday waxaad ku nooshahay wax allaale wixii noloshaada tagay anoo hadda ka hor baa waxa igu dhacday marka waagaan yaraa macallinkii dugsiga ay dilay waxaad rabtaa iskugu sheekaynaysaa kaliya si aad ugu noolaatid xilligii tagay ku noolow hadda maxaa ku hor yaalla hadda noloshaadu siday tahay hadda halkaad u socotaa noloshaada maanta ka feker shalay way tagtay kumana soo socoto berrina lama gaadhin waxa kaliya inuu haysano markay imaato noloshana waxaa waaye waa maanta kaliya shalay way naga tagtay berrina lama gaadhin waxaad haysato waa hadda waa maanta maxaad ka fekeraysaa maskaxdaadu maanta maxay u fekeraysaa maskaxdaadu maanta ma degan tahay maanta ma aaday jimicsi maanta cunto fiican ma cuntay maanta ma soo shaqaysatay shaqadii aad rabtay inaad isku daydo ama waxyaabihii xirfadii aad rabtay inaad isku daydo ma samaysay ma iska jartay caajiskii maanta wax ma akhrisay waa maanta ku noolow hadda xilliga aynu joogno taas waxay kaa caawinaysaa maskaxdaada in feker badan uu ka yaraado maskaxdaaduna ay nadiif ahaato kaliya ka feker hadda wax ku hortaagan taas micnaheedu ma inaad mustaqbalka feker inaadan fiirinaynin waxa dhici doona waxyaabahaas oo dhan laakiin kuma noolin haddaynu noolnahay hadda xoogga saar waana kuu muhiim badanaana xilliga aynu hadda joogno way fududahay inaad iskaga jirtid xataa hadda ka hor nin waxaa laga yaabaa 2020 inay wax kuu suurta galeen 2023 baa lagu jiraa 23 baa lagu jiraa 2020 baa wax yar kuu suurta galeen oo guulaad gaadhay meeshii baad istaa ku tahay hadda ka hor baa ma ogtahay lacagtaa sameeyey hadda ka hor baan waxaa ka shaqayn jiray ma ogtahay hadda ka hor lama taagna haddaa la taagan yahay hadda maxaa tahay hadda maxaa kuu qabsoomay waana kuu muhiim awow si maskaxdaada deganaanshaheeda aad uga shaqaysid oo ay nadiif u noqoto inaad ku nooshahay xilliga hadda la joogo iyo hadda waxa kuu suurtageli kara iyo sida hadda aad horay ugu socon karayso qodobka shanaad ee aan ku daraya waxa uu noqonayaa meditation sameey meditationka Soomaali wuxuu ku noqonayaa qaado waqti kelinimo ah kaliga waayo haddaad si uga fakartid meditationka iyo practice-ka la sameeyo markay imaato meditationka aniguna waan sameeyaa wax kale ma aha meel kaligaa fadhiiso ha noqoto inaad kayn aadid ha noqoto inaad qol kaligaa dhex fadhiisatid ha noqoto inaad bannaanka meel kaligaa fadhiisatid kaligaa meel fadhiiso adoo dhegaysanaya thoughtskaaga fikradaha kala duwan ee maskaxdaada ay ku keenayso waxyaabaha kala duwan ee maskaxdaada kuu sheegayso kaliya fakar aamus xilli aamusan qaado oo aad kaligaa tahay meditationka dhan waa intaas wax la akhriya ma jirto wax la sheegana ma jirto qaybo kala duwan bay leedahay laakiin aniga tan ugu badan ee aan maskaxdayda ku nadiifiyo waxaa waaye meel baan keligay fadhiistaa waxaanan daawadaa oo aan fiiriyaa thoughtskayga iyo fikradahayga igu soo dhacaya ee kala duwan sida ay yihiin haddii aad bilowdo meditation ama aad bilowdo inaad keligaa maalin kasta 10 daqiiqo 15 daqiiqo 20 daqiiqo maskaxdaada aad dhegaysatid waxyaabahay kuu sheegayso dhegaysatid thoughtska ama fikradaha kala duwan ee kugu soo dhacaya intaas oo kun oo thoughts baa maalinkii maskaxdeena soo marta ama intaas oo kun oo fikradood baa ku soo maraysa maalinkii qaar waa negative qaar waa positive sida keliya ee aad ku aamusiin karto ku dejin karto ku nadiifin karto maskaxdaadana waxaa waaye adoo isticmaalaya qaacidadan ay dhahaan meditationka
ama meel degan tag fadhiiso aamus dhegaysana tartiibna waxaad arkaysaa maskaxdaada oo isu nadiifinaysa qaarkiin haddaad isku daydeen meditation iyo sida idin caawisay qaybta commentiska waad ku soo qoraysaan haddii aad taqaanaan haddii kale video baan ka samayn doonaa meditationka iyo waxa uu yahay iyo sida ay ku caawin karayso qodobka lixaad ee aan ku soo gabagabeynayo xalqadan waxa uu noqonayaa safar keligaa gal maxaan ka wadaa meeqa nin oo idinka mid meeqa qof oo idinka mid oo hadda i daawanaysa baa safar keligood galay nin ahaan waa ku muhiim waxaa jirtay waraha Soomaaliya oo dhahaysay safarku ragga waa u door hadduu mawdku deynayo wax noocaas oo kala oo kaliya ay markaad fiirsidna Soomaalida suugaanteedii hore iyo waxyaabihii hore Soomaalidu sameyn jireen iyo markay maanta suugaanta iyo gabayada iyo heesaha waxaas oo dhan waxyaabo muhiim ah way ku jireen waxyaabo badan oo bulshada way ku jireen laakiin markaad taa ka fikirtid waxay ahayd baan u maleynayaa haddaanan si sax ah u dhahaynin waad iga sixi kartaa qaybta commentiga ku soo qori kartaan socodku ragga waa u door hadduu mawdku deynayo macnaheedu waxaa waaye socodka iyo safarka ninka ragga waa u muhiim ninka ragga socodka iyo safarku waa u muhiim waana qayb aad u weyn oo maskaxdaada lagu nadiifiyo keligaa safar keligaa bax meelo kala duwan tag khibrado kala duwan baad helaysaa waxayna kuu tahay daawo dhowr jeer baan anigu isku dayay marar badan baan isku dayay waxaa laga yaabaa sanadkii 2 jeer 3 jeer inaan keligay safro meelo kala duwan aado waxa keliya ee aan kuu sheegi karana waxay tahay keliya daawo waay inaad keligaa safartid nin ahaan meelo kala duwan aad tagtid daawo waay qaarkiin waxaa laga yaabaa guriga hooyadin inaad weli joogtaan in idinka tagid magaalada aad ku dhalateen waxyaabahaas oo dhan inaad keligaa safartid waa kuu daawo maskaxdaadana way weynaanaysaa isbeddel baad ka arkaysaa waadna nadiifinaysaa maskaxdaada waayo koombadii yareed ee maskaxdaada ku jirtay waad ka soo dhex saari kartaa lixdaas qaacido oo haddaad isticmaasho waxay kaa caawinayaan inaad maskaxdaada nadiifisid maskaxdaadu korto nin ahaanna aad heshid deganaansho maskaxeed waad ku mahadsantahay daawashada xalqadan haddii aadan channelka subscribe saar like samey la wadaag laba xaniyoodlayaasha kale sidoo kalena commentiga igu reeb maxay yihiin waxyaabaha aad samayso ee aad maskaxdaada ku nadiifiso ama aad ku caawisid maskaxdaada inay nadiif ahaato xilli kasta waad ku mahadsantahay daawashadaada intaynu ku kulmayno xalqatan lamida waxa la idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo